السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوناخة وناكسن ما أنتم حنقادن دونا horrific conversation وشاكيسي وابسي كاسو حيسا له لسعود وناكسن إنت 10 قبلاوين وحاكسو حسوسنا فضلا هذا كنالكو عصب تاي سبسكرايب لايك شير هذا كنالكو عصبين 10 كان لايك شير غري سي أردي كلا أي وفايدستان. أحمد وحولي how's your self-feed واسدي حالة دادي بهجة وحيلي داي my self-feed حالة ديدا is rather well way wanaagsan tahay. Ahmed wuxuu leeyahay I want to ask you inaan ku weydiiyo two important questions laba su'aal muhiim ah please fadlan don't be sorry about me hayga xumaanin. Bahja okay hagaag discover soda your question is su'aalahagi. Ahmed why do the Somali generation girls waa maxay sababta gabdhaha dhalinyarta Soomaaliyeed dress ay u xirtaan a transparent clothes dhar khafiif ah. Bahja waxay leedahay as to great say u qurxiyaan their style nidaamkoodii ama stylekoodii. And why do the Somali generation boys waa maxay sababta wiilasha dhalinyarta Soomaaliyeed dress ay u xirtaan blam trousers sarwaalo dhubdhub ah and average shirts iyo shaati aan facod ahayn. Ahmed wuxuu leeyahay don't ask me that question su'aashaasi ay weydiinin you have to answer waa inaad ka jawaabtaa my question su'aashaydii. Why do the Somali generation girls waa maxay gabdhaha dhalinyarta Soomaaliyeed change ay u bedelaan their natural color skin kalarkoodii dabiiciga ah. Bahja waxay leedahay as the boys sida wiilasha to be loved ay ku jeclaan lahaayeen or in hand ama gacanta ugu dhigi lahaayeen. And why do the Somali generation boys waa maxay dhalinyarta wiilasha Soomaaliyeed cut their hair tintoodii ugu jiraan like sida herog kuli cali banjarti oo kale ama dog yeegi oo kale. Don't ask me Ahmed wuxuu leeyahay don't ask me ha iweydiinin a silly question su'aal dhaqameed cause maxaa yeelay a silly question has no answer su'aal dhaqameed jawaab ma leh. raal hada 10 kan ka faa'iiday ama kanaalka ku cusub tahay subscribe like and share hada kanaalka cusubeen 10 kan la garay share garay si arday walaalaha kale ay u faa'iideystaan insha Allah karaan rajayna dib 10 wax soo galin doona sida regularly ah duwilayd insha Allah.